qalabkan oo la sheegay in loo adeegsan jiray samaynta leysimada been abuurka ah iyo warqadaha canshuuraha ayaa maanta lagu soo bandhigay xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliya waxaana goobta lagu soo bandhigayay ku sugnaa xeerlaalyaha guud ee qaranka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya. waxyaabaha kale ee qalabkan loo adeegsan jiray ayaa waxaa ka mid ahaa fiisooyinka iyo warqadaha caafimaadka cisbitaalada iyo kuwa waxbarashada. taliyaha ilaalada canshuuraha ee ciidanka booliska Soomaaliya Jenaraal Cabdullaahi Xasan Barayse iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir Aadan Sheekh Cali Fiidow ayaa ugu horeyn warbaahinta la hadlay. alaabta hadda idin hor taala waxaa ka mid ah dukumeenti ay bixiso dawladda hoose ee dhulka. baasabooradu waxay isugu jiraan kuwa dibadeed oo dawlado kale leeyihiin iyo kuwa muxuu ahay baasaboorka Soomaaliya. wasaaradda dukumeenti caafimaad oo muxuu ahay loo sameeyo laguna fududeynayo dadka muxuu ahay caafimaadka u baxaya maadaama isbitaaladu ay ku xujiyaan qofku inuu yahay qof garaaba ah oon dalka waxba looga qaban karin si loogu fududeeyo fiisooyinka. wasaaradda waxbarashada dukumeentigeedii shahaadooyinkoodii hadday ahaan lahayd dugsi dhexe hadday ahaan lahayd dugsi sare ilaa heer jaamacadeed hortiina ayay yaaliin. waxaa meesha ku jira haddana dukumeenti ah warqadda dembi la'aanta certificaate binaale oo halisa oo ayaduna muxuu ahay warqadda dembi la'aanta qofka muwaadinka loo sameeyo oo ayaduna been abuura oo ay sameynayeen. qof kasta oo Soomaaliya waxa rabaa inuu dalka dhismihiisa iyo wanaagiisa iyo horumarkiisa uu ka qayb qaato, laakiin qofka waxaan sameynaayo oo nolol ka raadinaya dalkiisii iyo dadkiisii ayuu burburinaa. baasaboor oo foojiriya haddii la sameeyo waxaa dhumaya shaqadii dawladdu hay'addu ay lahayd baasaboorada samaysa ayaa meesha ka baxaysa. haddii shahaado foojiriya la sameeyo waxaa meeshaas ka baxaysa waxbarashadii rasmiga ahayd ka baxe. haddii dhalashooyin foojiriya la sameeyo wax kasta oo foojiriya la sameeyo waxay burburinay wixii asalka ahaa iyo wixii dawladnimada ahayd iyo wixii shacabka Soomaaliyeed ay ka faa'iideysan lahaayeen ayay burburinay. xeerlaalyaha guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Cali Qalooco ayaa sheegay in faldambiyeedkan lagu mutaysan doono ciqaab isla markaana gacan adag lagu qaban doono shakhsiyaadka ku lugta leh arrimaha noocan oo kala. waxaan idin leeyahay anigu idinku ammaanaya shaqada maanta aad qabateen, laakiin gaabis baa idinku jira idin leeyahay. weli gaabisaa jira. waa in laga hawlgalaa in la soo afjaro hay-adaha loo keenayo oo xafiiska xeeraaliyuhu ugu horeeyo oo maxkamaduhu ku xigaan oo xabsigu ku xigo oo saldhigyadu ku jiraan. ayagana waxaan leeyahay gacan adag oo sharciga waafaqsan in dadka lagu qabto oo aan si sahlan sharciga gacantiisa uga bixin oo qof walbaaba wixii uu mutaysto lagu qaado. qofkii aan mutaysanina xorriyadiisa u yahay. document false ah wadankan ma ka shaqeynayo daqiiqada lagu ogaana. marka dadka waxaa ku mashquulsan inay ka haraan oo ay u arkaan in dawladdu ay jirto dawladduna ay dabagelayso. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho.